الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، عباد الله اتقوا الله تعالى. وأنا في الله khudbadayna waxay ku saabsan tahay wakhtiga aan marayno ee qiimaha badan iyo fursadda iyo nicmo fara badan oo ilaahay ina soo mariyey markuu allah subxaanahu wa tacaala inoo soo gebagabeeyey. waxaa isweydiin mudan wakhtiga hadda aan marayno muxuu yahay waxa aan u baahannahay inaan nafteenna weydinno. shalay oo khamiis ahayd maalinkii ka horreeyay arbaca ahaa waxaa inoo soo gebagaboobay maalmihii loo yaqaanay ayaamu tashriiq, kana mid ahaa ciidda al-adxa ee raacsanaay oo nabigeenna salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uuna faray inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisana badinno, nicmada uuna siiyeyna aan cunno adaaxida, ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa iyo nicmada uuna soo gaarsiiyeyna aan ka faa'iidaysanno oon ku faraxno. isla maalinkaas arbacada ah ee 13 dilxija waxaa sidoo kale soo gebagaboobay xajkii baa soo gebagaboobay. haddaba waxaa isweydiin mudan markaan ku noqonno aayaatulxaji fii kitaabillaahi, waxaa jira arrin alla subxaanahu wa tacaala uu soo celceliyo gebagabada aayaadka xajka. marna alla subxaanahu wa tacaala waa farriin uu nafaraayo, marna alla subxaanahu wa tacaala waa boorin uu nagu boorinayo camalka wanaagsan inaan ka faa'iidaysanno, marna alla subxaanahu wa tacaala waa ammaan uu ammaanayo sifadaa uu nafaraayo dadka ku sifaysan. haddaba camalka isweydiinta mudan waa kaa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo celceliyey oo ah taxqiiqu taqwa allahi subxaanahu wa tacaala wa mudaawamati alcamali الsaalixi bacda almawaasim alkhayriya. ilaahay subxaanahu wa tacaala wakhtiyada fadliga badan hadduu na soo gaarsiiyey qofka muslimka wixii dadaal uu kari karayna uu bixiyey, weli waxaa dib loo farayaa inuu alla subxaanahu wa tacaala taqwadiisa joogteeyo, alla ka cabsiga inuu joogteeya. haddaba markaan ku laabanno aayaatulxaji, allah subxaanahu wa tacaala xajkiiyo cumradaba markuu na faray inaan dhammaystirno, isla aayadda wuxuu ilaahay ku gebagabeeyey wattaqu llaah, war ilaahay ka baqa oo ka cabsada, waxaanad ogaataan waclamuu ana allaha shadiidu alciqaab, war ilaahay cadaabkiisa iyo cuqubadiisa waa kulushahay waanay adag tahay qabashadiisa. allah subxaanahu wa tacaala aayadda ka sii dambayso wuxuu kaga hadlay zamanka faadilka ah ee xajka. alxaju ashhurun macluumaat, bilaha xajka iyo zamanka xajka oo la yaqaano waa bisha shawaal, bisha dilqacda iyo 10 beri ee horayso iyo inta raacda 3 beri ee dilxija. ashhurulmacluumaadka loo jeedo waa intaa. bilaha markuu ilaahay ka hadlaya zamaaniga ah waxaa haddana aayadda lagu gebagabeeyey war aakharo sahaydeeda qaata. adduunka sahaydiisa waa naqaanaa, waana midka wakhtiga badan aan gelinno. aakharana sidaas oo kale sahay iyo zaad bay u baahan tahay. zaad aakharo loo qaatona alla ka cabsiba ugu wanaag badan ee ilaahay ka baqa waa haddaad caqli leedihiin ood wax garanaysaan. mar labaad buu ilaahay nagu soo celinayaa alla ka cabsiga iyo inaan sahay ka dhiganno. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka hadlay gebagabadii aayaadka kale oo ka sii dambeeyey acmaashii xajka iyo gebagabadiisa ilaa dikriga allah uuna faray wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat. waxaa lagu soo gebagabeeyey aayaddaana wattaqu llaah, war ilaahay ka baqa. xajkii baan soo gudannay, dadaal baan soo bixinnay, weli waxaana la faraya alla ka cabsi. waxaa haddana digniin baa la daba dhigayoo waaclamuu annakum ilayhi tuxsharuun, haddaad alla ka baqi waysaanna ilaahay baa lidiin horgeyni doonaa. xashriga iyo kulanka iyo marjica iyo meesha loo laabanayo waa ilaahay hortii subxaanahu wa tacaala. allahaad hortegi doontaan markaa ka baqa oo war wuxuu idiin farayna la imaada, wuxuu idinka reebayna ka fogaada. allah subxaanahu wa tacaala fii suurati alxaj
وحكاها لي حجك بلو جيسي أعماش لقبنا يودن وأذن في الناس كبلو إلى بيج يكبضن الله سبحانه وتعالى كغور رمي حجك وحلا وجير لسو دحقليي إلهي سبحانه وتعالى شعائر تيسا شعائر وحلا وضع واستامها دينية صلاة وشعيرة حجك وشعيرة صومك وشعيرة عمل والبو عباد قبلنا وأستان إيوه علامة تاغن دين إسلامك إلهي شعائر تيسا قفك وينيو الله حرمات كيسا قفك وينيو وحلقو قارا الله كعبسك إيوه قلبك إنو إلهي كبقى كذب الله سبحانه وتعالى حوله لقورعي لفتوضى الشعيرة لغت المامي ديقا الله داديناي يا حولها حجيدة يا أنقب أنقلينو وأستان دينيت وإذا أباهن إلا ماموسو لنا وينيو الله وحو كسو قبا حولها أتقليسان iyo dhiigooda iyo hilibkooda midna ilaahay gaari maayo arinta waxa lagu baabiinay dhaqankii jaahiliga ahaa oo xoolaha markay gowracaan dhiigana kacbada ay marmarini jireen hilibkana waxay ku warwari jireen kacbada marka dhiigna ilaahay gaari maayo hilibaad kacbo ku warwarteena gaari maayo ilaahay waxa gaarayo waa cabsi qalbigiina ka soo fushay saadarteeda ikhwaani filaahi aayaadka dhammaan waxa ay nafarayaan وألا كعبسك قفك مسلم كينو جوكتيو هذا هو حيث ويدين لأنه إيمانه قفك حجك نجا هذي إيو كان نجا 10 ذي الحجة كفا إذا استي إيو أنت نولنا هاي قفك مسلم كمساجد كسوع عمرة يا الصلاة يا الصوم يا عبادة سنة يا أن أبندقنا هذا على كعبسك هي تطبيق هذا الله سبحانه وتعالى ما دام نوسع العليي أريقاه laba baa loo kala baxayaa markaan dhaqankeena fiirino qofna waa daacad alla ka cabsigii baa ka muuqataa sida qalbiga ooga soo fushay daahirkiisa ay ka muuqataa waa qof ereygiisana run ah waa qof salaadiisana ay tahay salaad nool salaada waxay ka mid tahay astaamaha iyo calaamadaha iyo arkaanta diinta marka shahaadateynka laga soo tago waxa ugu culus وانا شيء ugu horeeyo xisaabta ay ka bilaaban maalinka aakhira laakiin salaada aan tukanayno ilaahay baa og xaalkeeda nabi maxamedna dardaaran buu nooga tagayo haddaad tukanaysaan sidaan u tukaday u tukada mar walba xasuusnaa aad tukanayso lafdiga nabigeena sallu kama ra'aytumuni usalli laga yaabo inay khushuuc ku keento salaadaadana aad saxdo aad la dagaalanto waswaaska iyo khushuuc la'aanta salaada markaa tukanayso iyo cibaadaadka uu sameynayna waa daacad tayib waanan qof sooma faral iyo sunnaba ku dadaalo waa qof shaakira ilaahay nicmadiisa ka mahad celiyo waa qof ku sabra cibaadaadka xumaanta ka samro masaa'ibta ku sabro waa qof ay ka muuqato cibaadaadka ilaahay carabkiisa uu dikriga ka qoyan yahay istighfaarka dhaqankiisa waxaa ka muuqata taqwada qalbiga ayaa daahirka ka soo fushaa لأنه waxaa la yiraahdaa kullu inaa'in bima fihi yandah weel walba waxa gudaha ugu jiro baa dibadda u soo saaraa ka waa nooca waxaana la joogaa oo dhihi karno baciid kama niin ani adigaba muslim ah nala tukado nala soomo caadi hebel iyo hebel ah laakiin haddana beenaala warkiisa waa beenaale waa khaa'in waa wax isdabamariye xaaraan kama leexdo muslim kama badbaado waa nin macaasidii sidaa u dabaalanayo masaajidkan uu kaaga horraynayaa kuwa ilaahay u tilmaamay khalatuu camalan saalixan wa aakhara sayi'a wanaaggiina wuu kugula jiraa xumaantina qaybtiisuu ka wadaa qofka aaway taqwadii alla subxaanahu wa tacaala intay ka martay saa darteeda waxaa la yidhaahdaa qofka ramadaanka dadaalayo 10 dilxija dadaalayo xajka aadayo cumrada ku laalaabanayo waxaa laga rabaa sidaasuu cibaadaadka u laazimayo suuqa markuu joogana inuu kii ahaado safar markuu yahayna kii shalay dadaalaya kacbada hoos fadhiya inuu ahaado inuusan laba midib ama laba shaati inuusan lahaanino ninkii muttaqiga ahaa ee ilaahay ka cabsanayay siduu markuu masaajidka joogay
inuu goob walba ku ahaado waa haddii dhab tahay waxa uu sheeganayo taas marka waa imtixaan na haysto dhammaanteenna ikhwaani fillaahi arrinka kale isxusuusinta mudan wuxuu yahay oo u baahan isagana in laisku tambiihiyo salafkeena ridwaanullaahi tacaala calayhim ajmaciin waxay ayagoo dadaal badan la imaado oo camalka iyo cibaadaadka waxa annaga hadda aan samayno waxaanan u dhoweyn la imaani jiray oo meel walba saabiqiin ahaa safka hore ku jiri jiray haddana waxay ka cabsani jireen camalka asaga in laga aqbali waayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku soo celiyo ka aqbali waayo saa darteeda ilaahay markuu awsaafta mu'miniinta ka hadlaayay fii suurati almu'minuun ayaa wuxuu ku soo gebagabeeyey waaladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajila annahum ilaa rabbihim raajicuun waxaa ka mid a awsaaftooda waa qolyaha markii khayrka iyo sadaqaadka iyo wanaagga bixinayaan qalbigooda ruuxanaya oo gilgilanaya caaisha ayaa weydiisay rasuulkeena salawaatu ullahi wasalaamu calayhi war maxaa ku dhacay kuwan yaa rasuula allaahi ma kuwa saariqiin oo xoolaha xadow ay ahaayeen ma kuwa khamrada cabob ay ahaayeen ma waxay ahaayeen kuwa aan salaada tukanin ma waxay ahaayeen kuwa aanan soomin may uu ku yidhahda caaishoy way soomaan way salaadaan ilaahay bay khayr walba ugu dhowaadaan haddana waxay ka cabsadaan in camalka iyo dadaalka laga aqbali waayo qofka mu'minkana laba sifo isku darsaday munaafiqana laba sifo isku darsadaa mu'minka waxaa lagu yaqaanaa inuu dadaal la imaado juhdi iyo daaqaadkiisa inuu bixiyo cibaadaadka ilaahay xaqiijintooda haddana uu ka cabsado ilaahay cuqubadiisa iyo caradiisa iyo in hataa camalkan laga aqbali waayo marka asoo dadaal bixiyey inuu haddana cabsi ay la jirto munaafiqana waxaa lagu yaqaanaa asagoo gaboodfalo ah ka gaabiyey waajibaadkii iyo xilkii iyo cibaadaadkii laga rabay haddana inuu aamin yahay wax cabsiba uusan qabin saa darteeda ilaahay qofka adduunyadan hadduu ka cabsado cabsi aakhara uguma daro adduunyadan haddaad ilaahay cadaabkiisa aad aamin ka noqotona aakharu ilaahay kugu cabsi gelinayaa marka waa arrin u baahan iyadana qofka muslimka inuu dareenkeeda lahaado war adigoo dadaalayso haddana camalkaada isku day siduu ilaahay kaaga aqbali lahaa waayo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin saa darteeda su-aasha hal ana min almuttaqiin aniga ma ahay kaa taqiga ilaahay tilmaamayo oo camalkiisa la aqbalayo yacni innamaa maxay tusinaysaa waa adawaatu alxasri ilaahay wuxuu ka aqbalaa muttaqiin basa haddaadan taqi ahayn allah ku raxmado marka waa arrin markaa cabsideeda leh waxaan ku soo gebagabaynayaa qofka muslimka mahmaa uu dadaalo cibaadaad iyo khayr ku dadaalo kama marno haddana camalka aad samaynayso khalal iyo dulduleel iyo ceeb iyo dhaawac saa darteeda ilaahay wuxuu noo faray mar walba inaan istikfaarta aan daa'imno xataa camal saalix adigoo la imaatay in istikfaar nala faro laga dambaysiiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi moxamed iyo asxaabtiisa salaatuleylka tukanay jihaadaay qur-aanka akhrinaaye sadaqaadka iyo qardiga samaynaya ilaahay agtiisa wanaagga geysanay waxaa lagu soo gebagabeeyey wastakfiru llah in allaha gafuurun raxiim oo waxaana wanaaga baa la soo sameeye maxaa fastakfiru llah salaadda markaan tukanno wuxuu nabigeenna noo jideeyey assalaamu calaykum assalaamu calaykum astaqfiru llah astaqfiru llah astaqfiru llah oo maxaan sameeyey salaadda aad tukatay tii la rabay ma tahay qalbigaada ma soo xaadirisay meeqaa ceeb way leedahay salaadda aad tukatay ilaahay baad hor istaagtee maqaamkaad hor istaagtay ma dareentay alimaam ibnulqayim wuxuu leeyahy qofka laba jeer buu ilaahay hor istaagayaa marna waa adduunyada marna waa aakharo maqaamka hore adduunyada haddaad iska hagaajiso salaadda ilaahay markaad hor istaagga dambaa kuu sahlanaanaya kan haddaad ku fashilanto oo aadun geed engegan tahay oo suuqana ku maqan tahay kaa dambead ku ciyaartay marka saa darteeda salaaddaa tukatay ilaahay ba xaalkeeda istikfaar ilaahay weydiiso leanna istikfaarta waxay keeni wixii kaa khaldamay iyo wixii kaa naaqisay inuu ilaahay kuu kabo xajka markii la soo gutay wuxuu ilaahay ku soo gebagabeeyey
إفاضة مركي الله سماه عرفة لقسو الرقمدو أو الله سماه أعماشي حجكي هدنا إلهي دم بداف ويدستا أنا كان سودو كلا أعماشي أنسو ودني مالمه قيمها بدناي وها أن مضنها واستغفارنا ننكو جبينه تقوى إلهينا أن لازمنه عمل والباء صالح أن سمينينه ثم صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام بأمر من رب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم على خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.